بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalkay walaashay haddaad ku nooshahay waddanka ama aad dibadda ku nooshahay aad tahay qof Soomaaliyeed ma idin sheega xaaladda aad ku jirtaan maanta runtii waxaad ku jirtaan laba xaaladood ayaa ku jirtaan kow ninka waddanka Soomaaliya jooga ee qof kasta Soomaaliya gobol walba uu ka joogo wuxuu isweydiinayaa maanta nabadda aad haysato berri ma haysan doontaa tan labaad uu ku jiro xaaladda qofka Soomaaliya ku jira ee Soomaaliya jooga waxay tahay wuxuu dareemayaa inuu awood la'aan yahay wuxuu dareemayaa tabar darri inuu yahay wuxuu dareemayaa in aan lagala tashanin mustaqbalka noloshiisa iyo tan dalkiisa wuxuu dareemayaa in uusan cod ku lahayn ayuu dareemayaa awood darri ayuu dareemayaa labadaas xaaladood ayaa qof walba oo Soomaali ah ayuu ku jiraa maanta haddaba aan isweydiino labada xaaladood inuu qofka Soomaaliya ku jiro midna ay tahay inuu dareemayo war nabadda maanta haysato berri ma haysan doontaa tan labaad oo ah inuu awood daran yahay mustaqbalka nafsadiisa iyo tan familkiisa iyo tan waddankiisa iyo tan shacabka guud in uusan ku lahayn awood wax uu ka dhaho waxna ka bedeli karin waxna diidi karayn ayuu dareemayaa labadaas xaaladood hadda inuu qofka Soomaaliga maanta uu ku jiro maxaa keenay haddii aan ka jawaabo su'aashaas waxaa keentay laba arrin ayaa keentay kow qof kastoo Soomaaliya waxaa u muuqda maanta in muuqaalka iyo arrinta dhabta doorashada ay ku socoto in uusan ahayn muuqaal fiican in aysan ka muuqanin rajo in aysan ka muuqanin wax wanaag ah in aysan ka muuqanin wax asaga qofkaas shakhsigaas iyo familigiisa ama iyo waddankiisaba wax faa'iido u leh ayaa ka muuqda doorashadan tan labaad oo labada walwal aan hore u soo sheegay ku keento qof walba Soomaali ah waxay tahay war dawladdii 22 sano la raadinayay markay Soomaaliya kala tagtay 22 sano la raadinayay maalinba meel imaanaysay haddii ay doorashadan sidan ku dhacdo oo madaxweyne iyo xukuumaddiisa lagu doorto ma dhici doontaa in ay macnaha dawladdii rajada laga qabay maalin walba garaafkeeda kor u kacaya inuu sii jiri doono mise tan waxay u horseedi doontaa maaragtay arrintii iyo laga qabay iyo hamigii iyo rajadii laga qabay in ay Soomaaliya dawlad yeelato oo awood leh labadaas arrin ayaa haddaba waxay keentay in uu macnaha qofku labadaas mustaqbal oo aan sugayno midna hadduu socdaa midna xukuumadda lagu dooranaya labadaba qofka Soomaaliga meel walba uu joogo midna waxay shaki ka gelisay nabadgelyada maanta aad haysato ma haysan doontaa berrito tan labaad haddii lagu doorto doorashada noocan ah madaxweyne iyo xukuumaddiisii miyay noqonaysaa xukuumaddaasi madaxweynahaasi mid shaqaysa mise waxay burburinaysaa rajadii 22 sano ee lagu raadinayay in Soomaaliya ay hesho dawlad cadaalad ah haddaba annagu waxaanu nahay dad muslim ayaan nahay rajada ilaahayna subxaanahu wa tacaala ninka muslimka ah waa xaaraan inuu rajada ilaahay ka quusto laakiin waxaa isweydiin leh maadaama hadda aad idinka og tihiin haddaad shacab tihiin meel walba waddanka ka jooga gobol walba ka deganaada qabiil walba lahaada waxaad og tihiin mustaqbalka waddankiina in hadduu nabadgelyo ahaan lahaa haddii dawladdii 22 sano la raadinay ahaan lahayd inay gacantaada ku jirin oo aad tahay awood la'aan inaad tahay marka maadaama hadda awood la'aan aad tahay shalayna lagu soo dhagaysan waaye maantana waxaad ogtahay inaan lagu dhagaysanaynin marka intay rajada aad leedahay way ka imaan kartaa marka runtii mustaqbalka maanta aad u jeedo mugdiga ah oo aan waxba ka qaban karin aad walwal iyo tabardarri iyo ciil aad meesha la fadhido horta runtii waxaa ka shaqeeya dad qaas oo dana leh in ay mustaqbalka jaranjaro ay madax waddanka ugu noqdaan adigii mas'uuliyaddii inaad mustaqbalkaaga wanaagsato oo ah mid rajo abuuro shacabka horta runtii waad dayacdeen sidaas darteed dayacaadii aad daaciyadeen shakhsiyaad kooban ayaa mustaqbalka maanta walwalka idinku abuuray
oo macnaha cabsida iyo nabadgelyada iyo dowladdan aad inuu waddanka dowladda yeelan karo in kale shakiga geliyey dadkaas way shaqaysteen mustaqbalka adigana mas-uuliyadaadii mustaqbalkaas madow ayay kuu shaqeeyeen adigii haddaad u shaqaysan lahayd mustaqbal wanaagsanna maada shaqaysan oo indhahaas ayaad ka fiirsanaysay anigu markaan ku leeyahay mustaqbalka aad u shaqaynayso waa inuu mar walba noqdaa mid nabadgelyo ah oo mid u qoray uusan noqon haddaba waxaa isweydiin leh rajadu kolley rajo way jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala kama quusanayno laakiin bini aadan ayaan nahay caqli ayaan leenahay ilaahay xaywaankuu naga bedelay marka sidee maxaa anigu waxaan qabaa marka mustaqbalka iyo fursadda keliya ee hadda dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin inay tahay hal keliya anigoo og in maaragtay qaabka ay baarlamaanka hadda ku soo baxeen uusan ahayn qaab fiican uusan ahayn cadaalad uusan ahayn mid u wanaagsan mustaqbalka shacabka iyo dalka u wanaagsan haddana waxaan qabaa baarlamaanka noocaas lagu soo saaray in uu asaga badbaadin karo haddii uu qaato mas-uuliyaddeeda haddii uu qaato maxaan ula jeedaa baarlamaanka maanta imaan doono waxaan u sheegayaa kow in nabadgelyada waddankaaga iyo dadkaaga iyo ehelkaaga iyo qabiilka aad matalaysaba ogow inay macanta adiga gacantaada ku jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sakow ogow dowladnimada Soomaaliya la raadinay 22 sano oo maalinba meel imaanaysay in ay gacantaada ku jirto in dowlad Soomaaliyeed oo sharaf leh ay dalato labadaas adiga ay gacantaada ku jirtaa aan ku sheego sababta ay gacantaada ugu jirto haddaba baarlamaanka oo imaan doona oo runtii annaga oo dhan aan ku qanacsanayn laakiin maanta waxaad heli kartaan fursad aad shacabkaaga iyo dadkaaga iyo ehelkaaga iyo adiga aad isku badbaadin karto fursad aad rajadii dowladnimo ay Soomaaliya 22 sano la raadina aad ku badbaadin karto adiga ay gacantaada ku jirtaa sidee haddaba ugu jirta aan kuu sheego kow waxaad ogtahay shacabkuna og yahay shakhsiyaadkuna og yihiin cid alla cidii ka soo shaqaysay in aad adiga aad maanta xildhibaan noqoto oo kugu soo saartay hab maamul oo doorashada gacanta ugu jirto ama lacag dadka shacabka gacanta ugu jirto waa taqaanaa sababta uu soo doortay waa taqaanaa shacabka Soomaaliyeed way yaqaanaan sababta uu soo doortay si haddaba loob adigana aad isku badbaadiso dadkana u badbaadiso shacabkana u badbaadiso dowladnimada Soomaaliyeed u badbaadisin walaalow iyo walaashay ninkaasi codka siinina waa fahanteen Soomaa halka taas ayuu ku jiraa siiya in alla intaad u aragtaan in aysan doorashadaasi musuqmaasuqa oo maamul ahaan uga qayb qaadanin lacag ahaan uga qayb qaadanin aad markaad u dareemi kartaan inuu noqon karo qof shakhsi ah oo dadku isku soo jiidi karo oo cadaalad ka dhex muuqato oo ay ka dhex muuqato waddan jacayl oo wadamo shisheeye u shaqaynaynin fursadaas maanta idinka ayay gacantiina ku jirtaa walaashay iyo walaalkay xildhibaanada lagu soo doortay maxaad noogaga bedelanaysaa haddaanu nahay shacab arrintaasi waxaad noogaga bedelanaysaan laba arrin ayaad nooga bedelanaysaan koo waxaad nooga bedelanaysaan inaan idin cafinno oo Soomaali inaan cafinno waayo waxaan ognahay processka iyo qaabka aad ku soo baxdeen waxa kale nooga bedelanaysaan arrintaasi in aad berrito annaga shacab ahaan idin aragno inaad tihiin dadkiina badbaadiyay ilaahay ka sako badbaadiyay dowlad Soomaaliya inay sii socoto rajada laga qabay badbaadiya labada shay ayaad nooga bedelanaysaan walaalkay iyo walaashay haddii shalayto aad u doonto xilka inaad magac iyo title ku hesho maanta waxa ku fuushay ogow مسؤوليتها كوين أيا كفوشي مسؤوليتها سيرونتا مد أديك قاس كود تابانيسو مد إهل كاجا تابانيسو مد شعب كجود تابانيسو مد تابانيسو دتك أد مثليسي مد تابانيسو دولة نمذا يشرفتا يدولة دينا هل الشعب كسومالي ودي مسؤولية داس أيام مانتا كفوشو مسؤولية داسنا مانتا ولد جودن كرتا واحد كوك جودن كرتان واحد تاعي عدي كوكو كالميش الشلي inaad saas wax ku noqoto asaga aad ku doorato ogow wuxuu u taagan yahay in nabadgelyada maanta anagoo dhan haysano inay burburi doonto dowladda 22 sano la raadinay inay burburi doonto walaalkeeyo walaasheeyo xildhibaanka ah ha dooran qofka noocaas ah sababtaad u dooran weydana waan kuu soo sheegay adigana waad og tahay eerkaagana waa og yahay qabiilka aad masalaad u subisana waa og yahay walaashay mas'uuliyadaas gutta
annaga haddaan shacab nahayna waxa waaye waxaan idiin balqaadnay sidaan hore idiin sheegin inaan idin cafinno midda labaad inaan idiin aqoonsanno inaad tihiin dadkoodii iyo dowladnimadooda badbaadiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muuqaalkaygaas waa fariin aan u arko xaaladda waddanka oo maanta ku jiro oo qof walba soomaaliya ku jiro waa mid aan talo ku siinayo xildhibaanada soo baxay waa mid aan ku dhiirigelinayo shacabka soomaaliyeed ha ka quusunin dadkan saara culays saara waa nagu qabiil waa nagu dad waa shacab soomaaliyeed way ogyihiin waddankeedna la degan yihiin xaaladda jirtay og yihiin xumaantay og yihiin dhibaatada ka imaan doonta ay og yihiin aan la hadalno ayaga aan la hadalno aanu ku dhiirigelinno inaysan dooran shakhsiyaadkaas xumaantaas mugdiga mustaqbalka geliyey ay doortaan shakhsiyaad oo macnaha wanaagsan oo macnaha dadkiina u fiican nabadgelyadiina u fiican mustaqbalka dowladnimona aan rajo dhigaynin oo sii kordhinayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaalkiin maxamed xuseen cabdow